أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أصحابتي هذا والسلام عليكم استأذنكم كجوكتين. السلام الله عليكم. وحاب مهد إلهي أسكله ومرة بعد الناس كسونا قناة أنا وعف ما قناة وهذين ما الدقايا صاحبة ذي دقالقة وهذين جعل هاي عاو حيدي وذا الشيكو حكمت في عن كل سنة wax badan aan ka fahmi doono sheekadaas waxay ku bilaabanaysaa marba waxa jiray nin boqor ninkii boqorka habeenkii uu seexday markuu seexday wuxuu ku riyooday isagoo ilkihiisa dhamaay ee daadanayaan subax markuu hurdada soo kacay waa dadka madaxda iyo xaaladooda wuu walwalay wuxuu isdhahay maxaa waxaan keenay riyada maxay tahay wuxuu amar ku siiyay wasiiradiis wuxuu dhahay ii keena dadka riyada fasiro waxa loo keenay nin riyada fasiro ninkii markii loo keenay wuxuu dhahay boqoro waxaas ma ku riyootaa asaas maxaa ku riyootaa isaana ku riyooday waxa ku riyootay wuxuu dhahay waxa waaye ehelkaaga dhamaan way baaba'ayaan qoyskaaga dhan wuu baaba'aa u dhahay waxa ka maharayo saas waxa ku riyootay ninkii boqorka uu xanaaqay ninka hadda la xiro xir haleenkeena mid kale loo keenay midkii kalena sidii ku fasiray mid saddexaad loo keenay midka saddexaad sidii ku fasiray kulli waa la wada xiray ilaa aakhirkii ilaa boqolaal la keeno markii dambe waxa la keenay nin riyo fasira ah ninkii riyo fasira ah uu weydiiyay boqorow waxa ku riyootay saxmiya ha ruma sana ugu riyooday haddana uu weydiiyay rumiya ha ruma sana ugu riyooday markii ninkii oo riyo fasira ah uu fikray hadduu dhaho riyada saan waaye oo qoyskaaga dhamaanay iyo waxa duusha waa xira muqt wuu fikir marka soo isagana u baxsada boqorkan uu runta ugu sheego wuxuu dhahay marka boqoro haddaba boqoro wuxuu dhahay hambali wada boqorku yaa maxay u hambaleenaysaa waxaan kugu hambaleenaa u dhahay qoyskaaga dhan ina adigu ugu cimro dheerta adaa dadka dhan ugu cimro dheer u dhahay dadkaaga dhan iyo ehelkaaga dhan adaa ugu cimro dheer oo joogaysi boqorku wuu farxay wuxuu dhahay ninkan hala abaalmarin hala siiyo hadalkii ee nimankii hore u sheegeen oo riyo fasira ahaa iyo kan isku mid leeyahay laakiin hadalka wuu u qurxiyay maaho si kale uga dhigay marka maadaama uu u qurxiyay wuxuu mooday uu ku farxay sababtoo isaga qoyska dhan dhimanaya markii la isna inuu dhimanayo waleynayay marka wuu ku farxay saasoo wada marka hadalka marka dhaysid sheekadaaneedu waxaan u soo qaatay waxa waaye marka adiga rabtid inaad wax sheegtid waxa laga rabaa hadalka inaad qurxisid dadka adoo wax u sheegaysid haddana si qurux badan inaad wax ugu sheegtid mid labaad hadalku waa isku si waana kala si hadalku waa mirgo kale hadba meel u jiidma haddaa qurxisid wuu qurxanaana hadduu adiga xumaysid wuu xumaana marka mid labaad sheekadaaneeta aan ka fahmay ani ahaan idinkana waa isoo dhigi doontiin waxa aad ka fahanteen sheekada ani waxaan ka fahmay dadka markay madax yihiin ama boqorro yihiin waxay jecel yihiin inay noolaadaan muddo badan waxa sii haystaan xukunka inay haystaan ay joogaan taas waa aan u fahmay idinkana waxaa ka fahamteen sheekada isoo dhiga waa idin salaamayaa asxaabteeda aad u mahadsantihiin haddaa sheekada ka hesheen dhiirigeliya subscribe iyo like iyo comment intaba waa idinka sugayaa mahadsanid waa idin jecelahay sheekooyin badanna waa idin soo wada insha allah maca salaam